السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلامي ضمان أصحابتكو حيران channel يوتيوب كيغا سلام كدب رن أهانتي مانتا وحين جعلستي إن آن إذن سوقد بيو امتحاناتكي عافمات وحا أيونو كسابسين يحي honeymoon cystitis. وانا محي honeymoon cystitis. honeymoon cystitis waxa weeyaan infekshanka arooska. lamaanaha guurka ku cusub waxay isku arkaan xanuun loo yaqaano infekshanka arooska ama honeymoon cystitis. marka waa maxay ereygan loo yaqaano cystitis? cystitis waxa weeyaan erey loo yaqaano Greek, yacni waa erey ka soo farcmay ama ka soo jeedo maadada biology. af Soomaali ahaanne ereygan oo ah cystitis waxa weeyaan infekshanka ku dhaco kaadi haysta iyo xididka kaadida keeno banaanka. maantuna imtixaanaadkeenu caafimaad waxa ayuu ku saabsan yahay oo keliya infekshankan ay badanaa ka cawadaan ninka iyo naagta xilliga ay ku jiraan arooska. infekshankana isla waqti xaadirkaasi markii ay aqal galaan ninka iyo naagta run ahaantii kama dhashanayo isla waqti xaadirkaasi. isbuuc kadib ama 2 isbuuc kadib ayaa waxa laga yaabaa in uu ka dhex dhasho infekshanka maadaama ay iskugu tagayaan. maadaama infekshankan uu ka dhasho ninka iyo naagta dhexdooda, maxay naagtu ugu hor cabataa infekshanka uuna ninku ugu hor cabani waayay? waana maxay waxyaabaha qofka uu dareemayo haddii uu ka cawanayo infekshanka? sidee loo baaraa infekshanka? haddii uu qofkan ka cawanayo infekshankan sidee loo daaweyni karaa? qaabkeena looga hortagi karaa infekshankan? run ahaantii waa cashir aad u muhiim ah una fiican qof walbo in uu wax ka ogaado infekshanka waxa uu yahay, waliba gaar ahaan ninka iyo naagta oo ku cusub guurka, maadaama uu infekshankan ka dhex dhasho xilliga galmada. haddana aynu ogaano waxa infekshanka arooska uu yahay. marka waa maxay infekshanka arooska? run ahaantii waa infekshan ku dhaca lamaanaha isku cusub, waxaana aad u dareemo dumarka, wuxuuna ka dhashaa galmada. mana ahan xanuunadii la yaqaanay ee ahaayeen galmada la iskugu gudbin jiray, kaasoo ah sexual transmitted diseases, cudurrada la iskugu gudbiyo galmada. waxa weeyaan sexual transmitted infections waa caabuqyada la iskugu gudbiyo galmada. balse hadda waxa ayaan ka hadlayaa sexual transmitted infections. sidaas daraaddeed lamaanayaasha uma lahan aqoon badan xanuunkan, waxaana la dareemaa xanuunkan xilli la kala xishoonayo in arrintan laga hadlo ama laysku sheegto. wayna qarsadaan badanaa dumarka, tanoo keeni karto dhibaato caafimaad. waxaa laga yaabaa inuu shaki keeno ama far isku fiiqis, iyadoo qof walba qofka kale ka shakiyo. sidaasna maahan xaqiiqdu, oo waa wax labada qof oo isku
cusub ka dhashay ee maahan xanuun qofka horay u watay ama horay u soo jiray. maadaama aan soo aragnay hadda infekshanka waxa uu yahay, haddana aan aragno waxa keeni karo infekshanka. marka maxaa keeni karo infekshanka xilliga arooska? Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu xubnaha taranka ku abuuray heerar difaacis infekshan oo kala duwan. waxaana ka mid ah in unugyadu xubnaha taranka ay la dagaalamaan jeermiska, waxayna u diidaan in jirku gudaha u gudbo. waxaa kaloo yaalo xubnaha taranka qanjiro u xilsaaran inay soo daayaan dheecaano dilo bakteeriyada iyo wixii la mid ah. sidaas awgeed, qofka aanan weli guursan oo dhowrsan kama sheegto badanaa infekshanka xagga hoose ah ama khaasatan dhinaca kaadi haysta. maadaama aroos la yahay, galmadana la samaynayo, waxaa imaanayo isbeddel ku dhaca jabiga guud ee xubnaha taranka, kaasoo hoos u dhigi karo difaacii jiray. waxaa badanayso fursadda jeermiska bakteeriyada in ay si sahlan labada qof isku gaarsiin karaan, tan oo ka imaanayso ficilada la samaynayo xilliga galmada. tan waxay keenaysaa in jeermiska bakteeriyada ay ku gudubto ibta kaadida ka soo baxdo una gudubto kaadi haysta. halkaas markay bakteeriyada gaarto way ku tarantaa, waxayna keentaa infekshan loo bixiyay cystitis oo ah micnihiisu infekshanka kaadi haysta. sidoo kalena waxa ayaa isweydiin mudan, maxay dumarka ugu sahalsan tahay in ay dareemaan infekshankan ay raggu ugu sahalsanaan weyday in ay ka hor dareemaan infekshankan? run ahaantii waa su'aal in badan isweydiin mudan. haddii aad rabtana in aad su'aashani jawaabteeda saxda ah aad rabto, isku day in aad fahanto waxaani aan rabo in aan hadda ku sharxo. waayo ibta kaadida dumarka aad ayay u gaaban tahay, dhirir ahaanne waxa ayay gaaraysaa 4 sentimitar, oo haddii bakteeriyo gaarto si sahlan ayay u gaari kartaa kaadi haysta. laakiinse raggu ibtooda way dheer tahay, waxayna gaaraysaa dhirir ahaan 20 sentimitar, waana tubada kaadida soo qaado oo xubinta ragga dhex marto. sidaas daraadteed, waqti dheer ayay ku qaadataa in ay jeermiska bakteeriyada ay gaarto kaadi haysta. waxaa dhici karto in qofka ragga ah uu kaadiyo, sidaasna ayay bakteeriyada safarka ku sii jirtay ay soo laabato. waana sababta haddii aysan haweentu aqoon u lahayn ay lamaanaheeda ugu eedayn karto xanuunkan, maadaama ay iyadu xanuunsan tahay isagana uusan waxba dareemaynin. marka waxaa imaanayso shaki ah in xanuunka laga qaaday ninka. taasina sax maahan. run ahaantii haddii aad fahanto intaan oo idil, run ahaantii waxa ayaa ku xaqiiqaysanaan doono
in infectionku uu haba si u kala qaadaan ragga iyo dumarka. marka haddii uu lacalo qofkan uu ka cabanayo caabuqa ama infectionka, waa maxay waxyaabaha uu dareemayo? run ahaantii qofka wuxuu dareemaa markii uu ka cabanayo infectionka, qofka waxa ayuu dareemi karaa kaadida in ay gubto, xanuun lafta ka soo baxdo, shuunka ama bisqinleyda, kaadida oo qofka ku hakanayso oo uusan si raaxa leh u dareemaynin. sidoo kalena si raaxa leh kaadida qofkaasi uma dhammaystiran karo. waxa ayuu qofka ku dhahaa dhakhtarka, kaadida markii ay iga timaato dib ayay igu laabataa ama way igu noqotaa. haddii aad sidaas maqashid, ogow in kaadi haysta laga hayo. haddii uu qofka iska daaweyni waayo xanuunkan, wuxuu kaloo dareemaa dhabar xanuun, xanuun dhanka galmada ah, kaadida oo dhiig lagu arko, iyo qandho dhaxan wadato. sidoo kalena haddii uu lacalo qofkaani oo si fiican iskaga daaweyni waayo infectionkan, maadaama infectionkan oo ka bilowday xididka kaadida keeno banaanka uu u gudbay kaadi haysatada markii loo baxo dhanka ragga, sidoo kalena waxa ayaa hubaal noqonayso in infectionkaasi ama bakteeriyadaasi in ay u gudubto dhanka keliyaha. mar haddii ay keliyahan u gudubto, run ahaantii qofkaasi waxa ayuu sidoo kale ka caawini doonaa in kaadida aysan marna ka soo baxan. run ahaantii xanuunkaasina waa xanuun gooni ah oo badanaa markii loo baxo dhanka keliyaha ay saameyn u geysan karaan infekshanno iyo cudurro kale. waana ka hadli doonaa maalin ka mid ah waxyaabahaasi saameyn u geysan karo keliyaha. fadlan haddii aad isku aragto calaamadahani aan anigu hadda soo sheegay mid ka mid ah oo aad iskaga shaqo qabto in aad ka caawinayso infection, fadlan waqti xaadirkaasi isku day in aad aado dhakhtar si uu kugu daaweeyo dhakhtarkaasi si fiican. marka sidee loo baaraa infectionka haddii aad ka caawinayso lacala? waxaa laga baaraa kaadida iyadoo lagu arko astaamaha tilmaamayo infectionka. run ahaantii infectionnadana waxa ay u kala baxaan markii oo loo baxo dhanka ninka iyo naagta labo qaab. markii aan ku dhahayana infectionnada waxa ay u kala baxaan labo, micnaheedu maahan wax kale ee waa infectionno qaar ayaa jiro markii oo loo baxo dhanka naagta oo laga qaado kaadideeda oo laga baarayo infection in laga arko infectionno gooni ah oo u ah. haddii oo ninkana laga baarayo infection, waxaa laga yaabaa naagto infectionno qaar laga arkay in uu asigana laga arki karin, balse infectionno qaarna ayaa jiraan ee ninku iyo naagta ay wada wadaagaan. run ahaantii waana baaritaan aad iyo aad u fudud oo daqiiqada lagu ogaan karo, meel kastane laga heli karo. haddana waxayaan gaarnay qaybtii daaweynta. marka sidee loo daaweyn karaa xanuunkan ama haddii uu lacalo qofkani uu ka cabanayo infectionka? dhakhtarka waxa ayuu qofka u qorayaa daawo antibiotic ah oo lagula dagaalamayo infectionka. daawada si joogto ah haddii aad u isticmaasho waxay ka baabi'inaysaa jeermiska dhibka kugu hayo, waana ka caafimaadi doontaa ilaahay idinkii adigoo wax raad kugu reeban. run ahaantii markii aan u baxo dhanka daawadani ee loo yaqaano antibiotic, haddii aad maqasho antibiotic waa koox ka mid ah daawooyin, waxaana
si af Soomaali ahaan lagu magacaabaa daawooyin qalajiye ah. Run ahaantii antibiotic-na oo idil daawooyinka oo idil oo antibiotic oo ka tirsan habba si ay loo isticmaalaa. Waayo waxaa jiraan daawooyin oo loo isticmaali karo qofka haddii uu naagtu haddii ay lacala ka caawinayso infection ee uur aysan lahayn, iyo daawooyin qaar ayaa jiro oo loo isticmaali karin haddii uu naagtani ay ka caawinayso infection ay leedahay uur marna loo isticmaali karin. Marka daawooyinkani oo antibiotic-ga ah waxa ay sidoo kale u sii kala baxaan laamo, waayo maadaama ay koox ka mid ay yihiin daawooyinkan antibiotic sidiisana waxa uu sii leeyahay laamo oo daawooyinkani habba si ay u kala aadayaan. Marka dib ma lahan, maalin un baa jiri doonto oo daawooyinka oo idil qaabka ay u kala baxaan idin soo sheegi doono. Marka maanta waxa uu kaliya ka hadlayaa infection-ka qaabka oo lagu kala qaado. Marka daawada ugu fiican oo infection-ka lagu daaweyn karo waxa weeyaan amoxicillin. Haddii uu infection-ka ama caabuqaada uu yahay caabuq zaid u sareeyo, daawo oo kaniini oo qalajiye ah wax way ay ka taraysaa, balse in muddo ay kugu qaadanaysaa fiicnaashada ay kaaga fiicnaanayso. Balse waxaa kugu habboon in aad qaadato cirbadaha ee loo yaqaano qalajiyaasha oo ku magac dheer ceftriaxone. Haddii aad isticmaasho cirbadaasi waxaa laga yaabaa inaad ku caafimaadi doonto within 7 days, 7 maalmood gudahood. Marka sidee ugu hortagi kartaa arrintan oo ah infection-ka? Run ahaantii dumarka aqalgali rabo waa u muhiim in ay talooyinkan raacaan. Talooyinkanna waxa ayaa ka mid ah midda koowaad oo ah waa in aad cabtaa biyo badan oo aadan marna siinin jeermiska inuu kaadiheysta ku tarmo. Cab ugu yaraan 8 galaas oo biyo ah maalintiiba si kaadiheysta ay nadiif u ahaato mar walbo. Sidoo kalena waa in aad yaraysaa isticmaalka aad isticmaalayso cusbada badan. Sidoo kalena waa in aad yaraysaa ama iska joojisaa cabitaanka aad cabayso oo loo yaqaano kafeyga, biyaha warshadaysan, maxaa yeelay waxay ku saacideynayaan bakteeriyada in ay ku tarmaan ama saameyn weyn u geystaan dhanka kaadiheysatada. Isku day in aad kaadiso galmada ka hor iyo kadib. Mid kalena waa in aad isku daydaa in aad ku dadaasho nadaafadda guud. Hana isticmaalin subaga ama loo yaqaano lubricant aanan caafimaad ahayn. Sidoo kalena waa in aad isku daydaa in aad isticmaali karto mar walba fruitkani loo yaqaano watermelon, qaraha. Waayo qaraha haddii aad shiidato aad cabto biyihiisa waxaa laga yaabaa in oo sidoo kale nadiif ka dhigo keliyaha, in oo sifeeyo iyo meelaha kale ay kaadida soo maraan ama meelaha kale kaadida ay hayso sida kaadiheysatada iyo xeydka kaadida keeno banaanka. Isku day inaad isticmaasho qarahaasi si joogto ah haddii aad awoodo. Run ahaantii talooyinka kale ugu dambeysay waxa weeyaan galmada kadib isnadiifi oo dhaqdhaqo ee horay ha ka jiifanin. Waayo bakteeriyada iyo jeermiska waqtiga ugu fiican ay fursad ku heli karto waa waqtigan. Haddii aad galmo samayso aadan iska dhaqdhaqan xubinta taranka, waxa ayaa bakteeriyada ee jaanis ku helaysaa in ay si sahlan ku taranto dhanka kaadiheysatada ayna saameyn weyn ku geysato. Marka fadlan noqo qof ku dadaali doono caafimaadkiisa guud iyo talooyinkani aan hadda anigu kuu soo sheegay. Haddii aad talooyinkani aad sameydo si joogto ah, waxa ayaa hubaal ah in aad ka hortagi doonto infection-kani qofka bini'aadinka uu saameyn u geysto mar waliba. Iskuna day in aad share gareyso videogan una share gareyso
qof waliba uu ka caawinayo infectionka si joogtada ah iyo waliba si khaasatan ragga iyo dumarka oo ku cusub dhanka guurka iyo qofka hadda haminayo inuu guursado ha noqoto naag ama nin run ahaantii cashirkani waxa ay ku xigi doono sexual transmitted diseases cudurrada lagu kala qaado galmada maadaama hadda aynu baranay sexual transmitted infections caabuqyada oo lagu kala qaado galmada fadlan